warqad ka soo baxday 29 bishii February ee sanadkan xafiiska wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa waxa uu ku sheegay in dawladda Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar ay ka heshay dawladdiisu hub noocyo kala duwan leh kaasi oo tiradiisu dhan tahay 4510 isla markaana hubkani ay isticmaali doonaan ciidamada xoogagga amniga ee Soomaaliya. warqadda wasiirku uu qoray oo ah mid si qarsoodi ah loo helay ayaa waxa kale oo uu ku xusay in hubkan ay dawladda Masar ugu deeqday Soomaaliya aan dib loo sii iibin doonin loona sii gudbin doonin cid kale iyo in aanay isticmaali doonin cid aan ka ahayn ciidamada xoogagga amniga ee Soomaaliya. hubka ku xusan warqadan uu qoray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo u badan noocyada qoryaha dagaalka ayaa waxa ka mid ah AK47, PKM, sniper, mortar, bastoolado iyo noocyo kale oo hubka ah. geesta kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa sheegay in dawladda Somaliland ay si adag uga walaacsan tahay hubka ay dawladda Masar ugu deeqday Soomaaliya isla markaana waxa uu cambaarayay dawladda Masar isagoo dawladda Masar ku eedeeyay in ay halis ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka isla markaana uu ku socodsiiyay Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo madaxweynaha Somaliland ayuu ku yiri dawladda Somaliland waxay aad uga walaacsan tahay dawladda Soomaaliya in ay ku guul daraysatay in ay u hoggaansanto cunaqabatayntii hubka ee Qaramada Midoobay. waxaan cambaaraynaynaa dawladda Masar ku xadgudubka cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya. tani waxa ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka ayuu yiri wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Caateeye Fariid. dawladda Soomaaliya wali wax jawaab ah kama bixin warqadani iyo sababta xilligan keentay in hubkani ay ugu deeqdo dawladda Masar. Soomaaliya ayaa waxa saaran cunaqabataynta hubka ee Qaramada Midoobay tan iyo burburkii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sanadkii hore 2019 waxay cambaarayeen hubka iyo rasaasta sharci darrada ah ee loo dhoofiyo Soomaaliya ee xadgudubka ku ah cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya.